Dubai laga keeno iyo alaabta China laga keeno keeba qiimo jaban keeba xagga cargo-guna dabcan qiimihiisu aad u hooseeya ugu horeyn walaal ku soo dhawow YouTube kan waxaan kaga hadalnaa horumarinta ganacsiga iyo sida aad u bilaabi lahayd ganacsi online sidoo kale waxaan kaga hadalnaa horumarinta shakhsiyadda ama self development haddii aad jeceshahay mowduucyada nagu soo biir oo subscribe noo saar si aad u hesho muuqaalo badan oo la xiriira online businesska iyo horumarinta shakhsiyadda sanadka 2026 ganacsato badan oo Soomaali ah waxay isweydiinayaan su'aal muhiim ah oo ah alaabta Dubai laga keeno ma ka jaban tahay mise waa ka qaalisan tahay marka loo barbar dhigo tan China laga keeno aan si kooban oo cad u kala saarno ko horta waxaan eegaynaa alaabta Dubai laga keeno maxay ku wanaagsan tahay maxaysa negative oo ay leedahay Dubai waa xarun ganacsi oo caalami ah gaar ahaan alaabta marka laga hadlayo elektrooniga dharka alaabta guryaha marka laga hadlayo runtii waa xarun waxa la yaabaa xarunta ganacsiga adduunka lagu naanaysaa oo loogu yeeraa faa'iidooyinka ay leedahay marka in qofku uu Dubai oo alaabta ka soo iibsado ama alaabtiisa uu Dubai ka soo raro waxa weeye horta gaarsiin degdeg ah oo Soomaaliya kale marka joogto ama aad dhulka Soomaalida joogto si fudud ba alaabta ku soo gaaraysa marka waxay leedahay gaarsiin degdeg ah alaabta dabcan lagu iibiyo Dubai waa alaab inta badan tayadeedu aad u sareeyo xiriir fudud oo dad badan oo Soomaali ayaa Dubai jooga oo runtii qofka hadii uu doonayo isagu inuu toos cid ula xiriiro ama u soo adeegta dad badan oo Soomaali iyo heli kara marka waxyaabaha kale oo faa'iido ay leedahay waxa kamid ah xagga cargo-ga marka laga hadlayo qiimaha alaabta lagu soo qaadayna aad bay raqiis u tahay tusaale halka kilogram Dubai marka laga soo qaadayo alaabta oo Soomaaliya la keenayo waxa lagu soo qaadaa $4 shirkadaha qaar $3 bay ku soo qaadaan ilaa $4 iyo bar baa lagu soo qaadaa halka kilogram waa marka diyaarad la soo saaraya dibadda la soo saaraya lafteedu qiimo inta ka sii jaban ayaa alaabta lagu soo qaadaa marka maxay Dubai in alaab laga soo iibsado waa maxay negative-ka ay leedahay qiimaha alaabtu wuu ka sareeyaa marka China loo barbar dhigo oo waxa qaali ah alaabta Dubai ayaa aad qaali u ah marka kuwa China loo barbar dhigo faa'iido yar baad helaysaa hadii aad ganacsi ballaaran rabto dad ganacsi ballaaran aad doonayso runtii alaabtu maadaama ay qaali tahay dabcan waxa sii saari kartaana waa yaraanaysaa faa'iidada halka aad ka helaysaan runtii way ka yaraanaysaa qofka markii China ka soo iibsaday waxa ka faa'iido yar ka Dubai ka soo iibsaday marka aan eegno marka iyadana aan barbar dhigno alaabta marka China-du cargo-gu uu China toos uga yimaado China waa warshada adduunka halkaas ayaad ka heli kartaa waxaad China ka heli kartaa alaab aad u jaban xulasho badan soo saaris ama bulki ama alaab badan oo jumla ayaad heli kartaa runtii container iyo alaab aad u badan ayaad ka soo iibsan kartaa marka China marka waxa weeye alaab aad u jaban baad ka helaysaa xulasho badan baad ka helaysaa oo alaab fara badan iyo shirkado kala duwan oo alaabti iibinaya shirkadihii baa toos ula macaamili kartaa alaabti soo saaraya oo daga iibsan kartaa alaab jumla aan oo runtii aad nooca doonayso hadaa rabto inaad magacaaga ugu soo qoro alaabti oo toos shirkada uga imanaysa magacaaga ku soo buusanaysa ayaad helaysaa faa'iidooyinka marka maxay faa'iidooyinka uu leeyahay in China toos alaabta looga soo iibsado ama cargo-gu qofka haduu China alaabta ka soo raranayo oo alaab ka iibsanayo qiimaha aad u hooseeya qiimaha aad buu u hooseeya marka China alaabta laga soo iibsanayo faa'iido badan buu ka helayaa qofka markuu alaab badan iibinayo waxayna ku fiican tahay ganacsiyada runtii aadka u koraya ay ku fiican tahay faa'iido marka degdeg raadinaya qasaarooyinka aad kala kulmi karto marka alaabta China toos looga keenay ama cargo-ga waqti dheer bay alaabtu qaadataa rarku alaabtu waqti badan buu qaataa halista waxa dhici karta inaad la xiriirto supplier ama shirkad marka alaabta iibinayso oo alaabta ay iibinayso alaabta yala aysan ahayn iyadana waa la kulmi kartaa marka labada negative waa leeyahay sidoo negative-ka saddexaad uu leeyahay waxa weeye alaabta markay China laga keenayo way ka qaalisan tahay marka Dubai laga keenayo alaabta markay China toos uga imanayso Soomaaliya imanayso aad bay qaali u tahay tusaale halka kilogram waxa lagu soo qaadaa $12 baa lagu soo qaadaa meesha halka kilogram Dubai looga soo qaado $3 waa dareemi kartaa farqiga u dhaxeeya cashuurtu ay ku dheedhahay marka iyadoo aad bay alaabtu u jaban tahay laakiin hadda cargo-ga xagga cargo-ga aad buu China qaali u yahay alaabtu rar badan bay soo galaysaa wareeg badan bay soo galaysaa ilaa 14 bari bay qaadataa meesha Dubai 4 bari 3 bari ay qaadato ilaa 5 bari maadaama Dubai toos loogu heli karo marka cargo-gu aad u fudud yahay marka maadaama hadda isbarbardhig aan ku sameynay alaabta marka Dubai laga soo iibsado iyo marka China laga soo iibsado aan eegno marka ka qiimo jaban 2026 ama xilliga hadda la joogo China cargo ayaa wali akan ugu jaban markasta China cargo ba aad u jaban macnaha China alaabta laga keenay cargo-ga alaabta China toos looga keenay ayaa aad u qiimo jaban alaab badan baad helaysaa ganacsi muddo dheer oo dabcan alaab aad u badan baad heli kartaa marka alaab ahaan China jaban hadda ka soo iibsanayso alaab ahaan China jaban laakiin cargo hadii laga hadlayo waxa jaban cargo hadii laga hadlayo Dubai waa jaban marka halka labada ku kala saarnaato alaabta iibsigeeda waxa laga yaabaa in aad ku soo hesho alaab dhan oo jumla inaad ku soo hesho $100 $200 $500
انت بقول ساعه اسكو هيشا laga yaabaa wax $60 ah laakiin hadda xagga kaargooga kaaga jarantay kaargooga aad qaali u tahay Dubai marka laga hadlayo waxay ku haboon tahay haddii aad rabto alaab degdeg ah tusaale alaab degdeg kugu timaado Dubai waa aad u fiican ama ganacsi yar oo bilow ah oo qofku uu doonayo alaab aan ka daahayn marba isku celcelinayana Dubai baa ku fiican marka ka qiimo jaban waxaan isla garanay waxa qiimo jaban in alaabta laga soo iibsado China laakiin cargo marka laga hadlayo soo qaadista waxa qiimo jaban Dubai talada muhiimka ah aan ku siinayna waxa weeye haddii aad bilow tahay Dubai ku bilow haddii aad rabto faa'iido weyn China cargo ama China alaabta ka soo iibso Dubai waxa ugu bilaabaysaa alaabta si fudud ku soo gaaraysaa isla markiiba ku soo gaari kartaa gunaanadku waxa weeye labaduba way fiican yihiin balse doorashada saxda ah waxay ku xiran tahay miisaaniyadaada aduu lacagteeda heli karto waqtiga aad doonayso alaabta inuu kugu soo gaadho iyo nooca ganacsi ee aad rabto ayay ku xirnaanaysaa hadba waxa aad suuq inaad China ka soo iibsato inaad Dubai ku soo iibsataa qolaba waxbay ku fiican tahay marka inaad waxay ku xiran tahay dhaqaalahaaga waqtiga alaabta rabto inuu kugu timaado iyo nooca ganacsi laakiin hal sir oo waxa weeye cid badan aysan kuu sheegin ayaan kuu sheegaynaa sirtaas waxay tahay alaabta intaad China ka soo iibsato alaabta China laga keen waxna alaabta alaab aad raqiis u ah hal cilad bay leedahay Soomaha way soo qaadista tooska ah bay qaali ku tahay waxa sameyn karta alaabta intaad China ka iibsato salahan shayn oo kale ka iibsato ayaa waxa ku xiran karta alaabta address ee Dubai marka iyaga Dubai keenaya Dubai marka keenaana Soomaaliya toos lagu keenaya tusaale haddii cali shayn ka iibsato alaab $40 ah waxay free kaaga dhigayaan delivery-ga soo qaadista alaabtii toos waxay kugu imanaysaa Dubai waa ku xiranaysaa Dubai shirkadaha cargo alaabta soo qaada address-keeda Dubai baa leedahay ugu hagaajiya Dubai marka alaabta lagu hagaajiyo Dubai alaabtii ay tagto toos ba iyagu Soomaaliya laga keenaya marka adiga marka alaabta China ka iibsato Dubai baa laga keenay halka day waxa ka baxay kharashka cargo-ga lacagtii faraha badneed ee cargo-ga ayaa ka yaraanaysa oo meeshii $12 China hadii aad bixin lahayd halkii kilogram waxaad bixinaysaa $3 baa bixinaysaa maarta sirtaas soo martay processka oo shayn ayaad waxa ku xiratay in ay Dubai ku keenaan Dubai alaab ma fiican marka ka iibsatana free bay kugu keenayaan marka taas ha la sameeyaa inta badan waana arrin ay cid kasta ku sheegi karaan fadlan haddii aad walaal muuqaalka wuxuu ka faa'iiday haddii aad rabto casharad dheeraad ah oo ku saabsan soo dejinta alaabta cargo-ga iyo ganacsiga online-ka subscribe saaro channel-ka like-na noo saar dad share garan karana runtii wax badan baad aad taraysaa akademiyada sidoo kale koorso e-commerce oo sida Alibaba shay looga soo iibsadana waan bixinaa cryptocurrency waan bixinaa social waxaan bixinaa marketing marka koorsooyinka aad doonaysaa runtii soo dalbo marka walaal waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iiday aad ba mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh